reegal ka iyo qisa aan ka qoraa jirto oo aan la yaabay sheekadan waxa ku keenay ayaa dhaweyto waxa dhacay nin maskaxda ugu jira la dhahay oo dumar dileen oo social media la soo dhigay dhanka kale haddana wiil yar oo asna waa la dilay lalaha marka Allah kala qaboojiyo horta Soomaali weyn waliba qaasatan reegal ka iyo aad isku laayeen hadda koor sheeka u taagnaa dagaal baa ka dhacay wuxuuna ka bilowday dhul la isku qabsaday rag baa labada dhinac mataqaanaa iska laayay kadib dagaalka waa la soo horfariistay xabad way socotay dad baa dhimanay dagaalkaas qofkii yaqaan uu garanayaa magaalada bay xabad ku socotay waliba labada dhinbo mataqaanaa masaajid xabad waa lagu riday masaajid oo mataqaanaa qoryo waaweyn lagu dhufanay isbitaal sidoo kaleeto marka sheekada igu yaabka badan waxay ahayd waa isguursadaan oo mataqaanaa labada dhinac marka gabar dhinacan lagu qabo dhinac kale ka u dhalatay ba xagga soo waceyso walaalkeeda dhimanaa loo soo sheegaya oo barooranayso xagga dhintay iyo soo sheegaa gadigan kale sidoo kale gabar oo xagga u dhalato inta lagu qabo ayadana xagga waceysa aabaheed baa dhimanay ama adeerkeed marka waxyaabaha igu yaabka badnaa oo aan galka ku arkay taas labada dhinac dumarku iswacayaan waa la isku tacsiyeynaya waa la barooranaya xabadu way socotaa marka waxa way Soomaali ma kala maaranto way isguursadaan way isdhalaan saasoo tahay way islaayaan waliba aniga qabiil iyo aano mataqaanaa la isku laayo oo si xun la isugu laayo meesha kaliya aan ku arkay waa gaalkacyo mudug sida qabiil la isugu laayo cid Soomaali oo kaleeto oo isugu leeysan anaabidkii ma arkin mataqaanaa oo ninkii gaalkacyo tagay waa garanayo marka waxa way Ilaahay waxa ugu baryaaya reegal kacyood waligood xabadan socotay anagoo aan dhalan waxa way ilaa hadeertaan mataqaanaa aana qabiil isku dilo Ilaahay kala qaboojiyo oo mataqaanaa sharci iyo dastuur kala qaboojiyo Ilaahay ha u keeno baan ilaa wax kala ma dheeleen wallahi fakhriga u dhaamo nabad laanta iyo qabiil in la isku dilo